hay-adda horumarinta qoyska guryasama ayaa muqdisho ka daahfurtay sanduuqa kaalmada guurka. munaasabad dhawaantan ka dhacday magaalada muqdisho oo si rasmi ah loogu daahfuray sanduuqaasi waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeeyaan culimo diin, aqoon-yahano, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta jaamacadaha dalka iyo haween ururada bulshada rayidka. haddaba arrimahaasi waxaanu ka wareysanaynaa gudoomiyaha guryasamo Axmed Abshir Geedo stuudiyaha marti inoogu ah. Axmed, ku soo dhawow barnaamijka bandhiga. sanduuqa ayaan low waxa uu soo jiitamayay soo socday muddo aad u dheer ilaa 3 sano ayaan ka shaqeynay sidii sanduuqaasi uu ku hirgeli lahaa. ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadinaynaa guud ahaan bahdii la shaqeynaysay iyo anigaba iyo intii gacanta ka geysatay furitaanka sanduuqaas kaalmada guurka. sanduuqan kaalmada guurka maxaa loogu baahday Axmed? waxyaabaha ugu weyn sanduuqan baahidiisa keentay waxaa kamid ah ayaan low qoysaska Soomaaliyeed oo guud ahaanba waayay meel ay baahiyahooda gaarka ah ku soo bandhigaan haday ahaan lahaayeen markay qoysasku dhismayaan talooyin la siinayo, tababaro la siinayo iyo taageero loo muujinayo. waxaan ognahay in baahi weyn ay ka jirto arrimaha qoyska. guryasamana xaruntii ugu horeysay ama hay'adii ugu horeysay baahiyahaas u istaagtay inay noqotay dadka Soomaaliyeedna ay runtii wax badan ay ka falceliyeen oo ay baahidaasi markii ay hay'adu istaagtay ay wax badan ay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nawaafajiyay nooga mahad celiyeen. marka baahida keentay waxay tahay ayaan waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay shaqo la'aan yihiin markay waxbarashada soo dhameystaan iyo intay waxbarashada ku jiraan intaba. marka waxa keentay baahidaas ah in dhalinyaradu ay u baahan tahay in la garab istaago laga kaalmeeyo duruufaha gaarka iyo baahiyaha gaarka ay qabaan. waxaan ugu talagalnay sanduuqa laba wajiga koowaad oo ah dadka baahiyaha gaarka qaba marka hore in arrimahaas guurkooda la fududeeyo kadibna dhalinyarada kale loo gudbo. waxaa xusid mudan ayaan low sanduuqa dadku waxay isweydiinayaan yaa dacminaya ama wax siinaya xagee laga keenaya dadka waxyaabaha la isku guurinayo. waxaan cadeynaynaa horena oo cadeynay munaasabadiina si cad ugu sheegnay in dadka Soomaaliyeed ay iyagu iskaalmeynayaan. waxa wax kaalmeynayo waa dadka Soomaaliyeed, cidda la kaalmeynayna waa dadka Soomaaliyeed. waxaan rabnaa sanduuqan xoogiisa inay gacan ka geystaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo iyaga la rabo in la kaalmeeyo kadibna bahda kale ee Ilaahay wax siiyo muxsiniinta ah ama ganacsatada ah inay arrintaas gacan ka geystaan iyo dawladda laftirkeeda inay gacan ka geysto. arrintaas ayaan ugu talagalnay. sida aan sheegnana sanduuqu ummadda Soomaaliyeed u furan yahay. waxaan maqalnaa inta badan Maxamed Cabdinaasir ayaan low in dhalinyarada Soomaaliyeed markasta la sheego in wax loo qabanayo, in yani la kaalmeynayo, shaqo abuur loo sameynayo. inta badanna ma muuqato arrimahaas quruxda badan ee la sheegayo wax qabta ama sidii loogu talagalay wax u qabta. marka waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed way ka daaleen in yiraahdo waxba lidin qabanaya. waxaan rabnaa xilligan waa xilligii dhalinyaradu inay iyagu iskaashadaan oo iyagu wax qabsadaan ayaan ka shaqeynay muddo dheer waan ku guuleysanay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga mahadinaynaa. sidee marka dadka ugu kalsoonaan karaan sanduuqan gaar ahaan midkan wax loogu qabanayo dhalinyarada Soomaaliyeed? su'aal fiican. dad badan oo Soomaaliyeedna ka gooxaysa qulubtooda. waxaan rabnaa Maxamed Cabdinaasir dadka Soomaaliyeed kalsoonidoodii waa luntay, aaminadoodii waa luntay. maxay ahayto sidii wax walba mashaariic looga dhigaayo oo wax walba dad gaar inta u istaagaan ummadii waxa waaye loo dhibaateynayay ay dadkii kalsoonidii iyo amaanadii ay isku qabeen meesha ka baxday. waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan in aan markastaahi laga quusan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaysan dadku walaalnimadoodii iyo ehelnimadii iyo qaraabanimadii iyo xididnimadii iyo Soomaalinimadii iyo islaamnimadii ka dhaxaysay inay marna aysan ka quusan, inaysan niyad jabin. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkan kama uusan yani lagama weyn dadkan in dad la aamino oo lagu kalsoonaado laga waayo. suurtagalna maahan ummad intaas ka kooban oo fara badan in dad la aamino ama ummadda amaanadooda ilaalisa ama xafida laga waayo. marka waxaan rabnaa sanduuqan iyo kalsoonidiisa in ummadda Soomaaliyeed ay dad badan ay tijaabiyeen aan ka mid noqon dadkaas ay tijaabinayaan yani ay nalana ogaadaan insha Allah ta'ala. dad badan oo qiimo lana ay sanduuqan kamid yihiin iyo guryasamo guud ahaan wax badanna wax qabadkeeda la ogaaday.
waxyaabaha ayaan low aan kuu sheegi kara waxaa kamid ah in 3 sano iyo 3 bilood ay guurisama shaqaynaysay in sanduuqa aan hore laga furin laakiin arrimo kale oo muhiim ah iyagana la sii qabtay talooyin la siiyay qoysaska dhisan iyo kuwa dhismaaya tababaro la siiyay wacyigelin joogta la sameynayay doodo cilmiyeysan la sameynayay waxaas oo dhan waxay noo horseedayaan dadku inay nagu kalsoonaadeen nana aamineen hadda markaan sanduuqa furnay dadka ugu badan ee nala soo xiriiraya waa dadka qurba joogta ah oo na weydiinaya يعني meelaha ay ugu soo hagaagayaan sanduuqan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan maxaa yeelay kalsooni weyn ay hore ugu qabeen dadku oo hore ayaan u shaqaynaynay haddana waxaan rabnaa inaan u cadeyno Soomaalida qurbaha joogta oo runtii kaalin weyn ka geystay ummadda Soomaaliyeed baadadeeda iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatadeena qiimaha badan iyo guud ahaan qaybaha bulshada inaan soo bandhigi doono qaababka ugu fudud ee sanduuqaasi dadku ay gacan uga geysan karaan iyo sida ugu sahlan ee sanduuqaasi loo aamini karo amaanada ummadana loo soo celin karo ayaan rabnaa inaan arrintaas ka shaqeynayno oo soo gudbino dhawaan dadkuna hadalhayntiisa aad ay u hayaan waana nagu soo celceliyeen xageen ugu xiriireynaa guud ahaan bangiyada Soomaalida oo dhanna waxaan ka sameynay akoono iyo koontooyin ayaan ku leenahay dadku waa kala xiriiri karaan waana soo wadnaa inaan soo bandhigno waxyaabaha ugu muhiimsan ayaan loo dadku ay na weydiinayaan waxa kamid ah yani qaababka iyo sida loo sameynayo arrintan guurka ah waxaas oo dhanna waa shuruuc iyo nidaam ay guurisama u dejisay inaan laga hor dhicin waa rajeynaya waxaan kale oo codsanaynaa in dadka Soomaaliyeed aysan degdegin meelaha qaar Soomaalidu aad ay ugu degdegtaa in laga war sugo oo yani hadii xitaa warar maalayacniya ama ku tirikuteena meelaha la wada la arkana in aan la degdegin ila la soo xiriiro dadka howlahan u istaagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanana waafajiyo wanaaga ummaduna santuuqana waa wada furan yahay inay ka qayb qaataan ku baaqayna insha Allah ilaa muddo inta laga u tala gasheen inuu socdo kaalmada santuuqa waxaan rabnaa in marka hore aan dadka Soomaaliyeed la kulanno horena waa ula kulannay haddana kulankii bilowday inaan marka hore dadkii ka dhaadhicino oo qorshihii u sheegno iyo waxyaabahan damacsannahay kadib ayay noqonaysaa xilliga uu soconayo lacag ururinta iyo waxa lagu qabanayo dadka la isku guurinayana saan sheegnay dadka baahiyaha gaarka qaba kowka ah dhalinyarada kale ku xigta laakiin dadka la isku guurinayay intay la eg tahay tiradooda waxay ku xiran tahay sida wax u soo ururaan iyo marka hore sida aan uga dhaadhicino dadka Soomaaliyeed kalsoonida lagu qabi karo santuuqan Axmed dadka la isku guurinay marka waa dad noocay ah ma dad idinka aad isku soo xusheena oo aad isku guurinaysaan mise dadka iyaga ay soo calmanaya dadka aan rabno inaan isku guurino oo hadda aan sheegayba inay marka hore aan ku horeynayno kuwa baahiyaha gaarka qaba waa dad iyagu iswata oo soo xushay kadib ayay dadku arrinta guurkooda iyo arrimooda loo fududeynaya waxyaabo kale oo xusid badan waxaa kamid ah ayaan loo isku guurin kaliya santuuqu maaha su'aalaha aad u soo laabanaya dadku waxaa kamid ah yaa isku biilaya santuuqu markii uu arrimaha guurka sahlo waxyaabaha kale oo barbar socda waxaa kamid ah in shaqo abuur dhalinyaradii loo sameeyo waa guur iyo shaqo abuur wada socda dhaqaalaha ku baxaya waxaas oo dhanna culays iyo walwal naga ma haysto waa imaanaya dadka Soomaaliyeedana baxsanaya wax ajaanib ah oo ay shaqo kula arrintan ma aha ummadda Soomaaliyeed inay iskaalmeyn karto horaan u ogaanay waana la ogaaday waana la tijaabiyay iyaga wax qabsanaya waxna way qabsan karaan marka santuuqu isu guurin iyo shaqo abuur labadaba way sameynaya dadkuna iyaga iskeensanaya oo iyaga soo heshiiyay oo soo fahmay oo reerihii iyo dadkii loogu talagalay inay siiyaan kulli markay ka soo dhamaadaan ayaa arrintaasi guurisamo iyo santuuqan tamataaba ay fududeynaysaa oo sahlaysaa sidoo kalena intaysan isguursan ka hor ayaa waxa loo sameeynaya tababaro dhalinyarada hadda isguursanaysa oo reeruhu isku dhisaan iyo kuwa aan dhisayna intaba intaysan isguursan ka hor inay tababarada guurisamo maraan oo qoysaska iyo arrimaha qoyska ay fahmaan ayaan ugu talagalnay oo dhalinyaradu intaysan isguursan ka hor ay tababarkaas maraan talooyin badanna ay helaan kadibna saas uu guurku ku dhaco Axmed dadka shaqaysta gaar ahaan dhalinyarada nolol maalmeedka dhacsan kara oo aan maanta awood inay guursadaan ma kamid yihiin santuuqaas way kamid yihiin ayaan loo marka hore dadka baahiyaha gaarka qaba ayaan arrintaas ugu talagalnay wajiga labaadna dadka hadda aad sheegtay iyo kuwa aan shaqayn laftirkooda ayaa ku soo xiga marka qorshuhu wuu diyaarsan yahay waana nidaamsan yahay kaliya inaan lagu dhaqaaqo oo la dhaqan geliyo ayuu u baahan yahay marka dadka Soomaaliyeed ayaan ugu talagalnay inaan barnaamijkan kala fariisano qaybaha bulshada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkadda Dahabshiil Group ayaan loo oo munaasabadii daahfurkana ka ballan qaaday in qoyska ugu horeeyo oo baahiyaha dadka baahiyaha gaarka qaba dhisaysa oo ku dhiiratay arrintaas
iyo shirkadihii kale oo ka qayb galay oo wadada kusoo jira ayaan u mahad celinaya iyo yaanan iloobin dadka tacliinta Soomaaliya sababta u ah badbaadadeeda oo aan ka xusi karo jaamacadaha Jamhuuriya iyo Jazeera iyo Islaamiya iyo xarumaha waxbarashada iskoolaadka dugsiyada sare oo santuuqaanba door ku lahaa furitaankiisii iyo munaasabadiisii intaba iskoolaadka waxaa kamid ahaa Axmed Gurey, Maxamuud Xarbi, Imaam Malik, Macalin Jaamac, Jaabir bin Xayaan, dugsiga Soomaaliya, xarumahaas oo dhan oo bahda tacliinta ah oo aan saaxiibna horay u ahayn haddana aan ku bahownay arrintan ayaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ayaanlow inay garab taagan yihiin nana garab taagnaan doonaan insha allahu tacaala sidii arrintaan ay ku hirgeli lahayd inta aan xusayana maaha micnaheedu intaas kaliya dadka Soomaalida dhan ayuu sanduuqa u furan yahay kana qayb qaadanaya insha Allah. ugu dambeyntii maalmahan waxaa aad loo hadalhayay guur wadareed wax la yiraahdo maxaa xiriir ka dhaxeeya sanduuqan iyo barnaamijkaasi guur wadareedka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa dareemaysaa inay baahi weyn u qabeen arrimaha noocan ah fikirkana waa fikir ku cusub Soomaaliya inkastoo wadamada islaamka uu ka jiro haddana dadkii ugu horeeyay oo barnaamijkan ka fakara oo qorsheeya ayaan ahayn wasaaradda diinta iyo awqaafta xubin ka socota ayaa maalin aan ku marti qaadnay munaasabad aan qabanaynay oo wacyigelin ahayd oo gubaabada guurka aan ugu magac darnay munaasabadaas ayay ka sheegtay in wasaaraddu ay iyadoona wado qorshe ay isugu guurinayso 100 dhalinyaro ah fikirkaasi wuxuu ka yimid wasaaradda iyo qorshaha noocaasa wasaaradda dhanna qorshaha inaysan wadan ayaa mar dambe naloo cadeeyay laakiin xubintaasi ay ku gaar ahayd barnaamijkana xubintaas wasaaradda ka socota ayaa suuq gelisay annaguna waa kaga horeynay barnaamijkan mana aha wax gurisamo ay shaqo ku lahayd 100kaas qoys sida aad u maqasheen ayaan annaguna u maqlaynay laakiin waxyaabaha la yaab kale ayaan loo waxa waaye in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arrintan ay dhiirigeliyeen ay jeclaayeen ay soo dhaweeyeen yani xiisaha iyo jacaylka arrintaas ay u qabaan iyo sida in loo kaalmeeyo ay u jecel yihiin ayay cadeeyeen waana ku taageeraynaa waana arrin aan soo dhaweynayno haddii wasaaraddu qorshahaas ay wado ay dhab ka tahay ay sax tahana waa arrin wanaagsan oo la bogaadiyo haddii aysan wadin oo qof kamid ah wasaaraddu ay ku gaarta arrintaasna waxaan rabnaa in arrintaas la xoojiyo la dardargeliyo insha Allah tacaala arrintan ay ka qayb qaataan anaga aan wadno ayagana tooda laga qayb qaato ummadda Soomaaliyeedna maanta waxay u baahan yihiin meelaha ugu muhiimsan oo laga dhiso waa qoyska oo la iloobay annaguna si mutadawacnimo ayaan arrintan ugu istaagnay cid barnaamijkan dabada ka riixaysa ama cid gaar ah oo ay ku tiirsanahay ma jirto waa barnaamij ummadda Soomaaliyeed oo dhan u furan koox gaar ah iyo qabiil gaar ah iyo qoys gaar ah iyo maxay ahayd xaraka gaar ah ama hay'ado gaar ah oo barnaamijkan wada ama kulug midna ma jirto ummadda Soomaaliyeed oo dhan u furan yahay cid alle cid ka qayb qaadan kartana waa soo dhaweynaa ayaan insha Allah